xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa ka socota qabanqaabada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo lagu wada dhawaan inuu booqasho ku soo gaaro Koonfur Galbeed. goobaha muhiimka ah ee bartamaha magaalada Baydhabo ayaa lagu dhajiyay sawirada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana bulshada isla dhexmarayaan booqashada ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa halkan ay ku imaan doonaan iyo waxa ay booqashadiisa ku saabsan tahay. maamulka Koonfur Galbeed ayaa mas'uuliyad iska saaraya soo dhaweynta wafdiga dawladda dhexe ee dhawaan halkan imaan doona iyadoona kulanka khamiislaha ee golaha wasiirada uu hogaaminayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen lagu soo hadal qaaday u diyaar garowga iyo soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha. booqashadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku soo gaari doono deegaanada Koonfur Galbeed ee hadda diyaar garowgeeda Baydhabo ka socdo ayaa bulshada waxa ay ka sugaysaa in uu wax ka yiraahdo arrimo khuseeya amniga gaar ahaan wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo oo caqabada ugu badan oo bulshada Koonfur Galbeed ay qabaan. qaar ka mid ah bulshada magaalada Baydhabo ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan booqashada Koonfur Galbeed ee ra'iisul wasaaraha iyo waxa ay tahay in ay kala hadlaan. waxaan diyaar garow xoogan ugu jirnaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waa markii ugu horeysay madaxweynaha cusub markii la doortay inuu soo gaaro aad u faraxsanahay ra'iisul wasaaraha soo dhaweyn fiican oo diyaarna maadaama dhalinyaradii aan anaga magaalada ku suganahay magaalada Baydhabo ay tahay boorarkii aan dejinay wadooyinkii iyo meelihii caanka ahaa waan qurxinay لأجل soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha dartiisa waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare dadka ay ku sugayaan dhalinyarada ay ku sugayaan ururada bulshada ay ku sugayaan ciidamada ay ku sugayaan sportiska ay ku sugayaan mudane ra'iisul wasaare gacmo furan ku soo dhawo. bismillaahir rahmaanir rahiim waliyeediyaan faraxsanaa in aan geeka hadal soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ani foole saada soo socda walaal faraxsanaa in aan dhawayn diyaar garowga in dambe ka jaran hadii aan ururada bulshada Koonfur Galbeed aan magaasho ka hadalo gudoomiyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed walaal farxadayga in aan geeka magaalada Baydhabo soo dhaweyn ku duwan soo dhaweyn ra'iisul wasaaraha ka dhawaayay markii in ka horeeyay in boorar ra'iisul wasaare leey Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo la kusur oo suurtagali maamulka geeka jeer magaalada Baydhabo oo ka horeeyay madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed iyo ururada dhalinyarada iskaaladayaan wali farxadnayga soo dhaweyn ku duwan ra'iisul wasaariyalkii oo dalka Soomaaliya mari laha ka dhawaay yaa ka dhawaay doon insha Allah. ra'iisul wasaaraha waa qubanti lamaado Soomaaliya madaxda ka sarreeyto kumaday inta horna maranin kooy hadhawayni sidii geerad baan dhawayni isku daran aan dhawaayana may kale shacabka inay kula hadalaan faday jidkan hirhirin oo na Muqdisho inta dadkii diyaarada leh jid naqdi inay arrimaas hornoon kula hadalnay haddana kula hadalo eeda anjeelada lahay. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi bihi astaciin ala umuuri dunya wa diin anoo malaaq maxamuud maxamed sheeg haddii aan ka hadal aragtay hadhaayo ra'iisul wasaaraha eeda aan ka diyaar garowni gaar ahaan odayaalka dhaqanka ee Koonfur Galbeed si weyn aan ka diyaar garowni waan hadhaayaan haddii Ilaahay idma gacmo furmaha ka dhawaayana si khaas ah may barajaan inta uu kulmo doono haddii uu kulmo wal kale ma kala hadal doono kuleeday wax baahida Koonfur deegaanada Koonfur Galbeed ka jarto oo aan ku horeeyay amaanka iyo kala hadal doono iyo sidii loo fur lahay wadooyinku xiran. Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kaliya booqashadiisa Koonfur Galbeed ku ekaan doonin magaalada Baydhabo sidoo kale waxa uu booqan doonaa magaalooyin ka tirsan gobolada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Mudin Xusni Universal TV Baydhabo.